marka waxaa rajeynayaa guys inaa ka faa'iidaysatiin. Okay, hadda hore waxaa usii galaynaa phase 3. phase 3 maxay soo bandhigayaan? phase 3 wuxuu bilaabanayaa May koodeeda, wuxuu soconayaa ilaa May 5teeda. phase 3 marka maxay soo bandhigayaan isla aragno. waxay soo bandhigayaan home textile, waxyaabaha guryaha loogu talagalay, carpet, carpetyada iyo tapestries. sidoo kale waxay soo bandhigayaan guys men and women clothes. meeshan waa dharkii waaye, ma fahamtay? phase 3 asagana waa very important because ay nooc dharaa helaysaa. sidoo kaleeto waa men and women clothes, underwearisk sidoo kaleeto hoosta laga gashto noocyadooda kala duwan oo rag iyo dumarka loogu talagalay, dharka sportiska iyo casual wearka, dharka caadiga loo xirto. sidoo kale leather, waxaa helaysaa leather helaysaa guys. Soomaaliya leather way soo saartaa umaleynaa, laakiinse warshado leatherka sii habeeyo oo leatherka gaarsiiyo heer laga sameyn karo dhar, boorso, kobo ma haysanaa umaleynaya. intii yani wadan kaleta u ogolaan lahayd inuu saas manufacturer u noqdo, wax usoo saaro adiga kaasii gato, waxaa fiicnaan lahayd in wadankeena yani maqaarka laga soo saaro inay haystaan warshado sifeeyo, hadhowna warshado kaleeto oo isla dalkii ah oo boorsooyinka sameyn karo, kobooyinka sameyn karo, jaakada ka sameyn karo ay soo baxaan, ma garatay? insha Allah waan rajeynaa inaan horumarkaas iyo heerkaas aan gaarno. waxaa helaysaa related products, waxyaabaha oo yani saasoo kaleeto ee leedarada camal oo leedar ahayn maybe. sidoo kaleeto waxaa helaysaa fashion accessories. accessorieska waxaa kamid yani not only katiinadaha, dhegdhegaha, also saacadaha la xirto, waxyaabaha timaha lagu xirto, yani waxyaabo badanaa jirto guys oo accessorieska soo hoosgalayo. and fitting, yani fittingna waa isla dhar kale waaye. textile and raw material, raw material aa helaysaa guys. dadka badanaa oo warshadaha leh waxay u baahan yihiin guys waxa la dhaho raw material, siday wax uga soo saaraan alaabtoodii. so waxaa helaysaa textile and raw material and fabrics guys. waa iska taqaaniin fabric, wuxuu noqon karaa maryahan oo kaleeto oo hadda cabaayadaha laga samaysto. Soomaaliya markaa joogno maryaha aa jarano, xamarweyne dhooban oo bakaaraha dhooban oo maxaa la dhahaa fabricska waa maryahaas waaye oo la jaranayo oo wax walba laga samaysanayo, hadday cabaayad tahay, hadday saaka tahay, ay noocaa helaysaa guys. okay, markaan waxaa usii gudbaynaa shoes, kobaha ay noocaa helaysaa. cases and bags, waxaa helaysaa maxaa lahaa boorsooyinka safarka, boorsooyinka oo dumarka, ay nooc boorse guys, ay nooc oo box oo wax lagu rito. sidoo kale cuntooyinka, food and sports, waxyaabaha sportska loogu talagalay, hadday tahay alaabihii jimka lagu sameynayay, waxaasoo dhan aa helaysaa guys. shirkada soo saarayo iyo warshado soo saarayo. travel, waxyaabaha lagu travel gareeyo, alaabaha oo loo baahan yahay markaa aa safraysid, iyo recreational product,
medicine daawooyinka ay nooc daawooyinka oo farmasiga lagu gada ha ahaato daawooyin kaleeto kala nooc ha ahaado health product waxyaabaha caafimaadka loogu talagalay way badan yihiin guys ma lasoo koobi karo medical devices qalabaha oo caafimaadka guys qalabka caafimaadka oo ay nooc warshadahooda helaysaa oo high quality also ani phase 3 mali iga waayo because waa very very important okay pet product waa dadka xayawaanada korsado kaleeto waxyaabahay u baahan yihiin iyo pet foods iyo xayawaanadaas yacni dadaa ayaan yuur korsado dadaa waxyaabo kala duwan korsado so waxyaabahaas cuntaday cunaan iyo alaabay u baahan yihiin waa helaysaa toiletries waxyaabaha musqusha loogu talagalay personal care product iyo waxyaabaha oo qofka personal carekiisa asalaamu calaykum waxaa iga damay kaameradii markaa meeshaan marayay marka waxaa rabaa inaa idin sii sharaxo intaan wixii ka dambeeyo personal care productiga ujeedid wax kale maahan waxaa waaye shalla hadday ahaa lahayd kareem barfuun iisheeg shaambo wax walbo oo naftaada ku kerkarinaysid marka meeshaan aa ujeedin hadda waxaa ku dhex jiraa websiteki aa ku dhex jiraa soo meeshaas aa ujeedid magacyaashan hadda hoos ku xusan mid maxaa lahaa category xaggaasaa ka arkaysaa midkaa rabtid oo interest garaynaysidaa sii doorane kaas keliya wuxuu sii leeyahay qeybo aad u badan haddaa ujeedid halkaas for example kaas waxaa waaye personal care product so personal care product intaasoo wax aa kusii dhex jiro ma fahmino marka specifically waxaa artaa sii dooran kartaa xagga ka fiirsan kartaa websiteka haddaa soo dhex gashid okay hadda waxaa soo galnay qeybtii kale oo office supplieska ahayd waxyaabaha oo xafiiska looga baahan yahay xafiiska keliya ma ahan midka oo dadka shaqeynaya xafiisyadooda ma ahan haddaa miis qabtid oo gurigaaga dhexdiisa wax ku baratid oo miiskaas wax ku baratid qalimaan kuu saaran yihiin buugaaga computerkaaga that's your office ma fahamtay marka waxyaabaha u baahan tahay qalimaan hadday ahaan lahayd ciyaalka riiska xitaa yacni meeshaan hadda waxaa u badana ujeeda waxyaabaha ciyaalka rarka u baahan yihiin waaye buwaagta oo colorfulka markaryaasha oo colorfulka adi ayi nooc oo waxyaabaha ardayda u baahan yihiin oo kale sidoo kaleeto arday keliya ma ahan dadka waaweyn xitaa xafiisyadooda waxyaabay u baahan yihiin way heli karaan ma fahamtay qeybtan kale hadda ujeedid waxaa soo galnay toyska waxyaabaha ciyaalka ay ku ciyaaraan meeshaan waa ujeedaa fiiri listigaasoo dhan waxyaabo kala duwan waaye oo waxyaabaha ciyaalka ay ku ciyaaraan marka adi waxaa exactly interested ku tahaa sii fiirsanaysaa ma fahamtay kabacdi waxaa ku xiga waxyaabay ciyaalka xirtaan kids wear children babies ciyaalka kulli iyo maamada waxyaabahay u baahan tahay maamada markaas dhashay waxyaabay u baahantahoo dhan aa ku jiro markasaa ujeedidbo bandhigan wax walbo waa la kofargareeyey wax walbo waa la keenay wax ka maqan malahan warshad ka maqan malahan markaa imaadid yacni waxyaabaha aa helaysid waa waxyaabaha u baahantaha waxyaaba kasii badan ma fahamtay xitaa fikradaha kugu dhalanayo dadkan waxawaay waxay jecel yihiin mar walba mar kasii dambeyso wax cusub inay soo saaraan ama wixii wax ka duwan inay soo saaraan ay jecel yihiin badanaa marka haddaa u fiirsatid alaabaha ay keenayaan waa alaabooda casri marka qofkii imaado meeshan waxawaaye fursado badan uu helaya uu la kulmi karo
soo saarayaal kala duwan. insha allah videoga xigo waxaa kusoo bandhigi doonaa qofka markuu Shiinaha imaado waxyaabaha uu u baahan yahay inuu ogaado. sida for example hadda Shiinaha oo kaleeto internetka free ma ahan, oo yacni haddaa mar wadankan aa imaadid waxaa kaa xirmaya social mediaha kaleeto dhan oo yacni westernka social mediada kaleeto facebooka, youtubeki waxaasoo dhan way kaa xirmayaan. marka waxaa u baahan tahay inaa isticmaashid waxa loo VPN. sidoo kaleeto dadka markay imaadaan waxay isku dayaan inay isticmaalaan Google Map iyo maapyo kala duwan oo xagga banaanka lagu isticmaalo. laakiinse Shiinaha dhexdiisa haddaa rabtid inaa maap ku isticmaashid waxaa u baahan tahay mid ay ayaga soo saareen oo yacni markaas meesha saxda ay ku geyn karo oo ku qaldeynin. marka insha allah waxaasoo dhan aa kasoo hadli doonaa. qofka markuu Shiinaha imaado aababka uu u baahan yahay inuu soo degsado iyo waxyaabuu u baahan yahay inuu sameeyo markuu wadankan imaado. insha allah videoga wixii kusoo xusi doonaa. wixii su-aala qabtiin insha allah youtubekeyga haddaa gudaha usii geshid waxaa arkaysaa instagramkeyga soo dhigay. dad badana waxay igu dhahan intay kaala soo xiriirnaa. instagramkeyga meesha soo dhigay. insha allah qofkii u baahan inuu su-aal i weydiiyo ama wax rabo inuu ogaado instagramkaas igu soo darsan karaa. xaggaasa maxaa la dhahay waa usoo jawaabaa insha allah. khayr badana idiin rajeynaya. maca salaama.